mas-uuliyiinta waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa sheegay in uu boqolkiiba 15 kor u kacay dakhliga waaxda cashuuraha bariga bishii ugu horeysay ee sanadka marka loo eego dakhligii cashuuraha bariga ee sanadkii hore. agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Maxamed Xasan Saleebaan iyo ku-xigeenkiisa Axmed Maxamed Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay hirgelinta nidaam cusub oo la xidhiidha habka cashuur ururinta iyo hawlgelinta kormeerayaal cusub oo loogu talagalay in ay soo kormeeraan ganacsatada iyo ilaha dakhliga iyo qorshayaal kale oo ay damacsan yihiin kor ugu qaadaan dakhliga Soomaaliland. ugu horeyn agaasimaha waaxda cashuuraha bariga mudane Maxamed Xasan Saleebaan oo ka hadlaya arrintaasi waxa kamid ah hadalkiisii. yaabaha inoo qabsoomay waaxda cashuuraha bariga waxa kamid ah hirgelinta nidaamkii cashuuraha procedure of law يعني dadkii qaabkii loo macaamilayay soo celino qaabkii sharciga ahaa ee sharcigeenu u dhigayay taas waa mid ayaa qodobka labaad waxa weeyaan abuurista kooxo kormeer ah waanu sameynay waxa kale inuu isku daynay inaynu kor u qaadno cashuuro fara badan oo markii hore la bixin jiray laakiin levelkooda bixintu uu hooseeyay sida cashuurta payrollka shaqaalaha iyo cashuurta gadista. waxa kale inuu sameynay iyadana isku daynay inaynu kor u qaadno cashuurta daaraha. arrinta kalena sameynay waxa kamid ah qorshaha hawlgalka waaxda cashuuraha bariga oo aanu sameynay week balaankii lagu hawlgalayay. intaasi waa waxyaabaha aynu sameynay. waxa kale iyaduna war wanaagsan inoo ah markaynu eegno dakhligeennii waaxda cashuuraha bariga bishaasi January markaynu eegno sanadkii hore wuxuu inoo kordhay 15%. taasoo inoo noqonaysa war wanaagsan waxa weeye waa hal biloon ilaa hadda waxaynu hawshan wadnay. marka bishaasi January dakhligeenu wuxuu kordhay boqolkiiba 15 marka loo eego sanadkeenii hore 2017. waa bilow waxaan rajaynaynaa anagoo meelo fara badan taaban oo cashuuro fara badan weli aan la ururinin. marka haddii hadda bisha January ay 15% waxaan rajaynaynaa in bil walba 15 iyo 20 ay noo sii kordhi doonto. لأن تاسمح ينو سورة قرينة سعيد حكي أي مكسل إني يوم كأني أهاي بقولك وبقول كلنا أي نوع سورة كشر. dhanka kale ku-xigeenka agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed ayaa ka warramay hawlaha u qabsoomay isagoo fariin u diray ganacsatada Soomaaliland iyo bulshada oo ku aadan in ay cashuurta bixiyaan. waxaan kamid hadalkiisii qof kasta oo muwaadin ah oo reer Soomaaliland oo dakhli soo galo wuxuu doonaba ha ku soo galo sidoo doonaba ha ku soo galo waxa weeyaan cashuur baa ku waajibaysa. cashuuro fara badan baa lagu yeeshaa ama cashuur shaqaale ku waajibaysa ama mid ganacsi baa ku waajibaysa ama kala wareejin baa ku waajibaysa ama wadamaris baa ku waajibaysa siday doontaba ha noqotee mar haddii qofka wax ay soo galaan oo gacantiisa wax soo galaan cashuur baa ku waajibaysa. marka taa waxaan leeyahay nimankaan baasha wali taabanin ilaahay waxaan uga baryayaa inuu u fududeeyo inay bixiyaan. waxaan leeyahay cashuurta kirooyinka idinka soo gasha cashuur baa ku waajibtay ilaahay idin fududeeyo in cashuurta la bixiyo. waxa kaloo jira cashuurta shaqaalaha qof kasta oo shaqaale ama yoomiyaha ku shaqeeyo ama bilha ku shaqeeyo isagana cashuur baa ku waajibtay boqolkiiba 6 la yiraahdo waa reedkeedu waa boqolkiiba 6. marka cashuurtaana loo shaqeeyaha inta badan noo keena oo soo ururiya cashuurtaana maskaxda lagu hayo.